maxkamad ku taala dalka Masar ayaa xukunka madambaysa ka soo saartay mamnuucidda dabbaaldegidda dhalasho ee wadaadka Yahuudda ee Abu Xasiira oo sanad walba lagu qabto mid ka mid ah tuulo ku taala dalka Masar. Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in qabrigii uu ku aasnaa wadaadka Yahuudda ee Abu Xasiira in laga saaro liiska waxyaabaha qadiimiga ah ee Islaamka iyo qadiyiinta ee dalka Masar, waxayna maxkamaddu diiday codsiga ay Yahuuddu u soo gudbisay ee ahaa in meydkiisa loo gudbiyo dhanka waddanka Israa'iil. Xukunkii kan ka horreeyay waxa 6 sano ka hor soo saartay maxkamadda Alexandria. Maamulka sare ayaa diiday rafcaankii loo soo gudbiyay iyadoo dowladda Masar ay codsatay in xukunkii hore ee maxkamadda Alexandria uu noqdo mid kama dambays ah. Maxkamadda Alexandria ayaa 2014 soo saartay go'aan ay ku mamnuucayso macbadka Abu Xasiira iyo qubuuraha Yahuudda ee ku hareeraysan ee ku yaala tuulada Dhimutu ee gobolka Buxayra oo hore uga mid ahaa liiska waxyaabaha qadiimiga ah ee Islaamka iyo qadiyiinta ee ku nool dalka Masar. Isla markaana go'aanka maxkamadda la gaarsiiyo hay'adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay lagana hortago dabbaaldegyada dhalasho ee Abu Xasiira ay Yahuuddu sanad waliba u qabato. Maxkamaddu waxa kale ay xukuntay inaan loo ogolaanin in naxashka ama lafaha Yahuudda hore ee ku aasan dalka Masar inaan Israa'iil loo wareejin, isla markaana si dhab ah loo aqoonsado Qudus inay tahay dhul dulmi lagu haysto, lagana fogaado dowladda dulmiga cadaysatay ee Israa'iil loona aqoonsado dal madax bannaan. Dabbaaldegyada dhalashada Abu Xasiira waxa ay soo bilaabatay 1970-yadii iyadoo oo sanad walba ay Yahuuddu xusto inta u dhaxaysa 26 Diseembar ilaa 2 January. Boqolaal Yahuud ah oo ka kala yimaaday dalalka Morocco, Faransiiska iyo Israa'iil ayaa qabriga Abu Xasiira u arka goob ay u soo xajiyaan oo sanad kasta halkaasi ay yimaadaan. Nuuridiin Cali Gabayaaye, wararka Gobanimo TV. Daawadayaal aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha sida tooska ugu xiran Telefiishanka cusub ee Gobanimo TV. Waxaan kugu wargelinaynaa inaad nagala socoto satellite-ka T-com6 frequency-ga 4113 simber rate-ka 15,000. sidoo kale daawade waxaad nagala socon kartaa bartaanu ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo YouTube channel. daawadeha markasta Gobanimo TV ku xidhnow kana daawo warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyo